علينا سيفي عندك الله فر إسلام محمود وموسى السلطان محمد موسى صور كيسنا وهذه السلامة يا شعب الصومالي ما أنت هذا البلد إن قال مديونه لكن أبان الصوماليات وحكوا بعي وكل يرنتي معجزة قبل يأسروا علي باوحة فرحمي أو كفصدي أو نور يتبان سنة أبيس جريني بل هذا الكادو ديسو. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا شيء آمين لكم في الشيء الوالد السلام مد الصوماليين ملك سد الدنيا ذيك تشوفتان سلام كدي ولا ليال الدنيا ذا إلهي واحد كستوى لقوا أركيا يعني كادو تشدان أنت على إيه بين بول سوشرتي إلهي نكما أبقين نينك رجع إنه حب صدا مهمة نين كانوا وحب ما هو بسنة سجى حب هو بسنين بونين مسكينة وانشقة كلها هين سوقلي خدك وصور كيس صوي استعماله يرني كاسا قبل يدير تيجي فرحمي دور arrimood buu khaladaad ku sameeyay ninkan oo waxba una ka hubsanin hooyo maskiina iyo caruurteedii buu dulmay ma garanayo inta badan rageena Soomaaliyeed waxa ku dhacay hubsiina la'aanta haysata ma aqaan waxa ku dhacay raga ninkan waa aabo isku sheeg anu aabo ma dhihi karo waa aabo isku sheeg hadduu wareeray maaha inuu la soo raadsado wareerka qoyskii iyo awlaadii iyo xaaskii iyo ubadkii u dhalay ninkan wuxuu sameeyay gabadhiisii yarayd baa loo soo kaxeeyay qoys dhan baa u soo kaxeeyay gabadha ninkii muxuu gabadhii habaryarta wahayd baa soo kaxaysay habaryar waa hooyo ilmihii yaraa waxa loo soo kaxeeyay asxaan jarmalka loo keenay mar alla markii jarmalka la keenay ay muddo joogtay baa waxa laga daba keenay hooyadeed bal fiiriya gardarada ninkaas uu sameeyo hooyadii gabadha dhashay baa la soo kaxeeyay isagii lixdiisii caruura 7 ciyaal u lahaay baa Afrika looga yimid sharci baa loo raadiyay sharcigii bay hooyadii u soo saari kar weys iyada hooyada waxa loo keenay inay sharciga u soo bixiso awlaadeedii iyo ninkeedii inta haray soo kaxayso arintii way shaqeyn wada qurbaha waa naqaan hawsheeda magaalada wadankay joogto bay ka tagtay waxay aaday wadan kale si ay ugu soo xareyso wax khilaaf baa yimid ninkan caruurtii ila hooyo iyo aaba isku mid ma moogta ubadkii lixdii looga yimid ayuu ku wareera wareerkii buu xoog wuxuu saaray inuu gabadhii hooyada ahayd ee qurbaha joogtay iyadaba iska rafaadsanayd uu dhibaato ku furo iyo gabadh yareed uu dhalay oo markaas soo kaxday labadood markuu dhibaato ku furay buu haddana qoyskii reerka soo kaxeeyay dhibaato ku furay arintan markaa waxay u egtahay khilaaf dhexdooda ah qoys ahaana khilaafkii qoys ahaaneed waxay gaarsiisay inuu nin kale oo maskiina oo Soomaaliyeed oo sonkor qaba oo macaan qaba oo rafaadsan oo xanuun iska hayo jarmalka iska jooga sawirkiisa uu isticmaalo ceebna uu sameeyo umadiina intay sii gudbiyaan waxayna hubsanin ay sii gudbiyaan hadda Cabdullaahi uu dadkan jecel ku jira ma sha Allah isaga qoyskiisa Ilaahay iska daayay haddana waxa ma uu hubsanin ninkii beenta laga sheegay isla markiiba soo galiyay isagana Cabdullaahi horta adiga waxaan kugu waanay inay iska hubsato nin weyn baa tahay marka hore hubsiino hal baa la siistaa wax hubso markaa kadib dadka ka hadal laakiin waxaadan hubinaa ka hadlin ninkana waa tala soo cadeeyay dambi ma uu gelin wax dambi oo gala haba yaraatay ma jirto ninkan sawirkiisa uu soo saartay ninkan hadda kaamirada hor jooga aabahan kaamirada hor jooga markuu isku wareeray qoyskiisii wareer kala kulmay oo waxba u hagaag waayeen wuxuu keenay fikrad ah in gabadhaydii baa la xoogay gabadhu maanta waa gabadh 20 jir sida la sheegay xilligii uu sheegay 12 jir ahayd dhowr sano ayay hadda la joogtay habaryarteed iyo adeerkeed habaryarteed iyo adeerkeed gabadhii la joogtay hooyadeed baa loo soo kaxeeyay bal ma nin baa gabar yar uu xoogay oo faraxumaynayo uu ogay dhibaato inuu geystay hooyadeed soo kaxayn lahaa oo keeni lahayd uu ogay in la dacweynayo moogta hooyadii buu soo kaxeeyay dadkii markay arintii u hagaag weyday kuwii kale la soo wada kaxayn waayay ninkii ilmaha dhalacay buu la soo fariisto waa ninkan 6 ciyaal looga yimid ee gabadhii saarta ceebeysanay intaasoo qof buu mustaqbalkoodii ku ciyaar oo buuq ku furay waxaan rajaynayaa gabadhaada yartaad ceebta u sameysay inay xanuun ka qaadin baa rajaynaya aaba mati haddaad aabata waxba hubsan lahayd haddaad aabata xitaa gabar laga kufsado kufsigu dhab yahay arinta waxaad u dhameyn lahayd hoos ahaan laakiin bulshada ma soo hordhigteen adoo inaayaheedii magaceedii inaayahaagii wax walba sheegay gabadhu mustaqbal bay leedahay wax kastoo ku dhac mustaqbalkeeda dabaad ku ciyaarta waxaan rajaynayaa gabadha yarta inay jira iyo xanuun iyo wixii buuqii qurbaha yaalay inuu ku dhicin baa rajaynaya because xanuun baad u geysatay hooyada laftirkeeda u rajaynaa inay dhibaato ayna ku dhicin ina ragaado nin Soomaaliyeedo
waxyaabaha qoysaska u geysanaysaan ama hooyada u geysanaysaan ama awlaadda aad u geysanaysaan rabbi subxaanahu wa tacaala horta idinka haydinka gooyo rabbi haydinka gooyo ceeba aad usii samaynaysaa waxay kugu tiri hooyadii ilmaha dhashay dhibaato ma qabto gabadhan waxaan aad sheegaysa kuma jirto gabadhi yareed way kuu sheegtay ninka aad beenta ka sheeganaysay adeerka ee habaryarta qaba xitaa ma uu soo kaxeeyeen hooyadeed isagoo og inuu gabadhan fara xumaynayo caqliyan qofka caqliga lagu fahmi karaa qorbo iskuma keenaayo hooyadeed wuxuu samaysanaya buu wadanaya qofna ma keenayo oo gabadha waxa uu heelay markaa ma keenayo laakiin inuu hooyadeed waliba soo kaxeeyo meeshaas waxa ku jira inuu ninkaasi laftirkiisa daacad ahaa daacadnimadiisii kale waxaa cadaysay sidaad ugu gafaysay oo nin kale oo maskiina aad sawirkiisa usoo qaadatay oo aan sawirkiisa u helin inuu dulmigu fiicneen baa idin sheegay Soomaaliyeed dulmi baad ku sameeynaysaa ninka maskiinka ah markaasaad mid kale oo maskiina sawirkiisa soo qaadatay ninkii baa khad kale soo galiyay aad sawirkiisa soo qaadatay ninkan sawirka la soo qaatay Soomaaliyeed ma aha ninka uu ku sheegay inuu wax kufsaday waa nin maskiin oo sawirkiisa uu ka soo qaatay xaaskiisii ilmaha u dhashay oo ay line isla buuxiyeen dadka qurbaha marka imaanayaan waxay iska wareystaan dhoofitaanka waxaas iska wareystaan hooyo iyo ninkaas oo marka isku xirnaa ninkaasina uu reer lahaa ayadana reer iyo qoys ay lahayd kadibna ay qurbihii isku meel yimaadeen sawirkii groupka WhatsAppka groupka u saarnaa ninka maskiinka ah ayuu ninkan iska soo qaatay intuu soo qaatay buu yiri ninka waxa u maleynayaa habaryarta gabadheeda qaba oo gabadheeda ku xoogay waaba ninkan hooyadii gabadha ayuu la xiriiray wuxuu yiri ninkan sawirkiisa ahaya miya ninka gabadheeda xoogay hadda Soomaali waa iska taqaan hooyo Soomaaliyada wareertay xanaaqday waa isaga iska tiri waa kelmada iska tira waana waxaan naqaano jikaar baan naqaana wanaga tag bay ku tiri waa isaga haduu doonay sidii uu ku yiri waa soo qaatay wuxuu soo khadku soo gashay wuxuu taagan yahay ninka gabadheeda xoogay waa kan maskiinkii waxa la soo galiyay sonkorta ku kacdo dhakhtarkii fahmi waayay dhakhtarkii baa fahmi waayay wuxuu dhakhtarkii caafimaadkayga dhan uu fahmi waayay waxa la waxa iga khaldan iyo meesha la iga haysto fahmi waayay waa maskiin sawirkiisa halka la soo galiyay waa maskiin kufsi uuna geysanin laga sheegay hadda wuu awoodaa inuu ku dacweeyo ilaa waxa weeye waa dignity waxa la dilayaa sharafta qofka la dilayaa marka sharaftiisa haduu rabo inuu u dagaalamo asagoo Afrika joogu dacweyn karaa ma fahanteen khaladaadka uu galay ka mid ah gabadhiisa yarna waxaan rajaynayaa eed haddaad maqashay message-kayga ninkan jiran iyo maskaxda ka gelin وأبو ووالد مركز طبي احترام لكن مسكحدي يكاجل عيبتن وكو سمينايو هكو تشيرنين هكو حنوسن waxa taa waa isogtahay waxa ku maray waa isogtahay dib inuu natiiro waa ogtahay adeerka ayaa lagu diray habaryarta ayaa lagu dirin hooyada ayaa lagu dirin ma fahmaysaa uqdad iyo cudur yaan lagu gaarsiin waan dareemi karaa gabar yar oo ceebo loo sameeyay waxa ay maanta dareemi karto ma fahmaysaa ninkan gardarada cadaanka ah ku qabsaday ninka maskiinka ah ba hadana reer YouTuber u sii helinaya leeyihiin ninkan wax xoogay oo maskiinkii kale khaladka laga galay sawirkiisa la soo gashanaya war Soomaaliya hubsiina hal baa la siistaa war umaday hubsiina hal baa la siistaa waxyaabaha aan qofka bini'aadmiga ah uuna ka soo kaban karin waa sumcadda qofka iyo diintiisa la soo fargasho hadaa tiraado qof aan gaal ahayn waa gaal waa dambi weyn hadaa tiraado qof sumcadiisa aad ka dishay iyadana waa dambi weyn waa waxyaabaha qofka bini'aadmiga dhibaato u soo jiidi kara caafimaadkiisa adigana dulmiga aad ka galayso ku soo jiidi kara dhibaato aan waliga ka harin sumcadda qofka bini'aadmiga aad ka dilaysaan iska daay umada aad ceebaha ka sameysanaysaan ayna lahayn ayna shaqo ku lahayn iyo sawirada aad ka soo qaadanaysaan iska daay war umadiyaha Ilaahay subhanahu wa ta'ala laga xishoodo YouTubers kana waxa iska hubsadeen qofka aad soo qaadanaysaan hubsada haddii qof dulmi ku jira aad dulmi idinkana dulmiga sii gashaan kuway dulmiga galaya la mitiin marka dulmiga guryihiina iyo awlaadiina ka go'an tahay marka waa talaan soo siinaya yarkan walaalkay Cabdulaahi iyo mid kasta oo reer YouTuber ah hubsiina hal baa la siistaa iska soo qaadanayna sawir ana aydan hubin waqti siiya markaad waxa ku aragtaan internetka ayaama sii ogaada wixii way soo baxaya Soomaali baan nahay annaga ka daba keenayna runta sida hadda arinta qisadan oo kale qisadii runtii baa laga daba keenay ninkii dhamaa baa la wareystay qisadii baa la wareystay hooyadii muxuu ahaa waa la wareystay gabar hooyada la saaxiiba la wareystay war dadkii dhan baa la wada wareystay wixii inay been tahay labadii nin laftirkooda la isku keenay inuu ninkan khaldamay oo uu yiri sawir uuna lahayn inuu iska soo qaatay uuna hubsanin wuu sheegay laakiin waa goor sharafta qofka bini'aadmiga laga dilay oo ninkii skorta lagu kiciyay marka hal la hubsiina hal baa la siistaa umada Ilaahay sharaftooda yaan lagu ciyaarin ilaahayna waxaan ka baryaa gabadha yarta
inuu qalbigeeda iyo maskaxdeedaba u ilaaliyo uu sharafta kaga ciyaaray ninkan iimaan kule ayaa wallahi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته